qaranka Brazil ayaa iska xaadiriyay wareegga kutarfiilaha koobka adduunka ee 2022 markii uu 4 gool ku garaacay xulka South Korea. xulka qaranka Brazil ayaa qaybtii koowaad 4 gool iyo eber marsiiyay xulka South Korea. xidigaha Vinicius Junior, Neymar, Diar iyo Richarlison iyo xidiga Lucas Paqueta ayaa shabaqada soo wada taabtay halka goolka qura ay dhalisay xulka qaranka South Korea uu dhaliyay xidiga Son. xidiga Neymar ayaa hal gool u jirsaday xidiga uu goolasha badan xulka Brazil ee Pele ayaa waayihiisa xulka Brazil uu dhaliyay 77 gool halka xidiga Neymar uu dhaliyay 76 gool. Neymar ayaa goolkiisii 7aad ee waayihiisa koobka adduunka dhaliyay. xidiga Neymar ayaa noqday xidigii 3aad ee xulka Brazil koobka adduunka goolal kala duwan u dhaliya, ayadoo hore ay goolal kale ugu dhaliyeen xulka Brazil koobka adduunka ee kala duwan xidigaha Ronaldo Wayne iyo xidiga Pele isagoo xidigii 3aad noqday. xidiga Thiago Silva ayaa noqday xidigii ugu daada weynaa ee koobka adduunka gool caawiya xulka Brazil isagoo jiro 38 sano iyo 74 maalin. xulka Brazil ayaa dib u xasuusiyay sanadii 1998 markii ay uga badiyeen 4 gool iyo gool sidaan oo kale xulka qaranka Chile. xulka qaranka Brazil ayaa doonaya inuu sanadkani ku guuleysto Mundiyaalka adduunka ee ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar.